kadib xasil darrada ku timid doorashada Soomaaliya iyo jahwareerka hareeraya siyaasadda dalka. Xaggay ku socotaa Soomaaliya? daawade ama dhageysta xogtan ma ahan mid caadifad abuur ah ama qolo ku socoto, laakiin waa xaqiiqda dhabta ah aysan shacabka ogeyn go'aanada siyaasadda iyo shaqada daaha gadaashiisa ka socota. Runta mararka qaar waa ay qaraar tahay, laakiin ogsoonow helidda xogo qarsoon. Waxaan ku bixinay waqti dheeri ah, dhageysi iyo daawasho wacan. Ku dhowaad muddo 2 sano ah waxaa dalka ka jiray isjiijiid iyo isfaham waa ku saabsanaa doorasho dalka ka dhacda. Ismaandhaafka iyo kala shakiga ka dhashay doorashada waxaa ku baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Khayre, kadib markii loo arkay inuu ahaa caqabadda kaliya ee hortaagnaa doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo. Kadib Khayre ma la gaaray xal doorasho oo mida. Heshiisyo dhowr ah oo la kala saxiixday ayaa dhammaantood u muuqda kuwa buray, loona baahan yahay hadda iyo heshiisyo cusub oo beesha caalamku goobjoog ka noqoto in la galo. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira xasil darro ka dhalatay muran doorasho, walow laga baaqsaday qax baahsan iyo dagaallo aad u culus oo dhaliyo dhimasho iyo burbur baahsan oo soo gaara magaalada. Balse waxaa sii kordhaya amni xumada ka jirta magaalada, iyada oo xaafadaha qaar harcad lagu dhacayo shacabka degan magaalada. Intaas waxaa sii dheer mudaharaadyo iyo hanjabaadyo ka dhana madaxweynaha dalka oo hal dhinac ah ayaa indhuhu qabanayaan. Haddaba maxaa lagu haystaa madaxweyne Farmaajo? Xaggaysa wax iska qaban la'yihiin? Kadib eryadii Korneel Gabre, waxa uu madaxweyne Farmaajo aaminay dalka inuu xor yahay, loona yeerin karin go'aanada masiiriga ah ee madaxdu u gaarayaan dalka. Waxaa jiray qaladaad fara badan oo laga fiirsan lagana bixin raaligelintii loo baahnaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho, taas oo lagula kacay inta badan siyaasiyiinta ku abtirsada caasimadda dalka. Kala dheeraashada Puntland, Jubbaland, aqalka sare iyo mucaaradka aan la dhacsanayn hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa fursad u siiyay in beesha caalamku mar kale hoggaanka u qabato arrimaha Soomaaliya. Hadda waxaa hal dhinac ka soo wada jooda beesha caalamka, dhammaan maamulada ka jira dalka, aqalka sare, siyaasiyiinta, ra'iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidanka. Waxaa dhexda taagan madaxweyne Farmaajo oo xilligiisii iyo awoodiisii lumisay qancinta iyo u kala dabqaadida maamulada suluugsan doorashada iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaad moodaa inuu wado mugdi ah ku socdo, tooshka uu watana uu batari la'aan yahay. Siyaasiyiinta mucaaradka, beesha caalamka, maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaad moodaa inay u qaadayaan madaxweyne Farmaajo heesta ah waa adigaas liitee, leexada ku sidatee, hadba laan cuskanayee, lugaha isla waayee, meel sare lalmanayee, maxaa lure naftaadii. Kulamo kaste oo la yeesho waxaa lagu gorfaynayaa siduu u tagi lahaa Farmaajo iyada oo wax dhiba uusan dhicin. Isma lahan waxa dhagaha shacabka ku soo dhacayo iyo shaqada ka socoto daaha gadaashiisa. Ma la taliyayaasha siyaasadda ayaa xun mise madaxweyne Farmaajo ayaa ah mid madax adag? Ugu dambeyntii, markaad eegto ficilada iyo guuxa caasimadda ka socdo, waxaa kugu soo dhacaya wadadii uu qaaday Allaha u naxariistee madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Kadib go'doonka siyaasadeed iyo jahwareerka ka haysta madaxweyne Farmaajo doorashada, ayaad moodaa filla Soomaaliya inuu ka dhex qaadayo erayada noocaana sida awr dukaano dhugatay xanuun qabo, waa waxaan la dhuubtay sidii labada dhaban iyo dhafooradan u haystaa waaga igu dhalaale. Su'aasha ayaa ah Muqdisho ma sii ahaan kartaa magaalo madaxda dalka?